Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kusoo dhawaada janaalka iyo Farduus isku filan waa mar kale iyo new video baliis haddii ay tahay marka kuugu horeyso oo janaalka soo booqato waxaan kaa codsanaynaa skarab garayso asxaabtaada kale la sii wadaagto waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabay soo dhawaada dhammaantiin meel walba aad dunida ka joogtaan alxamdulilaah ilaahay mahad u sugnaatay isoo celiya anoo caafimaad qabo waxaan rajaynaa idinkana dhammaantiin inaa caafimaad qabtiin inta safarka allah subxaana watacaala allah u wada fududeeyo ilaa qof walba oo muraad lena muraadkiisa allah u sahlo saxaabey maanta fiidiyogan waa qaybo kamida madiinati nasr insha allah waxaa u socday marka fiidiyogan aan sameynayay meesha hilibka lagu gado hore waa usoo geliyay meesha hilibka masha allah meeshaas hilib geel aad u macaana lagu gadaa oo sida kan caashir ahaynin oo hilibkeena Soomaaliya see noo sheegay nimanka Soomaaliya hilibkan oo geelana lakaga keenayo dheen marka masha Allah tabaarakallah xaafadaas aa ujeediin oo hadda korka duubeyna waa xaafada taasic waa ujeedaan kobriga kore amarwaya iyo xaafadeedii hore masha Allah tabaarakallah taasic oo degnaan jire waa ujeedaan masha Allah McDonald's iyo xaafada saro ay idin tusay ما شاء الله تبارك الله ولا لا قارا يسوي ديو تجمع الخامس مدينة النصر معيكو كل دويهن ولا أنا ما أنت فرقية أو إلى الله ذا لبذو ذا مجرته تاسنا وكنا ولاجر الحمد لله هذا وفرح سنة حافظة هذا دقنها أنا وكنا له وفرح سنة وحدي بني إلهي ما تصين الحمد لله مركا وحام سنة قفكة ماشي قناعدي إني كحرنت هذا ماشي إيماني صدق قناعضو way ku anfacaysaa meel walbo aad dunida ka tagtid miyi iyo magaalada marka masha Allah gabdhaha cusub oo dhan waxaan leeyahay soo dhawaada ilaahay subxaanahu wa tacaala qaahira khayrkeeda Allah idin soo xijiyo sabarana loo baahan yahay meel walbo oo dunida laga tago in loo sabro waaye hadda xaafad ka guurto xaafad kala degtid aba yacni waxay kula noqonaysaa si kale marka wadankii degnaan jirto ilmaha ku dhashay intaa kasoo guurtid wadan kale ooda aqoonin aa soo degtidna yacni way ka adag tahay marka sabaraa loo baahan yahay mida kaleetood maanta jecelahay inaan gabdhaha walaalahe aan u sheego idinkii ani nafsadeydaba waxay tahay horta Soomaaliya ku wada dhalanay inteena badan Soomaaliya kusoo weynaanay qofka ugu yaraa laga yaabaa asoo dhowr iyo toban jir inuu kasoo tegay marka qurbahaas annaka kuma dhalan awlaada ku dhalno oo keliya awlaadeena badbaadi u baahan yihiin diini u baahan yihiin soo marka waa aragtay maanta dunidoo dhanaa fidna ka jirta laakiin ubadkii Soomaaliyeed maanta 25 sano 35 sano in lagu xukumayo waa aragteen hooyooyinaan nahay has dhihin adigu dhibka kuma gaarin hiblaayo oo maanta jooga dhibka gabadha walaasha gaaray adi bari wuu kusoo gaari karaa marka waxaa loo baahan yahay inaan taxadirno ilmaha intay yaryar yihiin wadamo muslim la geeyo hooyo walbo oo yacni oo Soomaaliyeed soo marka tantiin nafsadeeda u sheegaa waxay tahay meesha tagna inaan u adkeysano anaka waxaa kusoo kornay wadan maxaa la dhahaa dagaalo iyo dib u dhigeen alxamdulilah diinana lagu soo koriyay akhlaaqana lagu soo koriyay waalidkeen cabsi kamaysa qabin cunugaada caqiidadiisa ama la haleeya tii rabkay u imaato uu ku dhimanayay kii kalena uu ka badbaadaya laakiin cabsida maanta jirto oo hooyooyinka iyo waalidka aabayaasha qurbaha awlaada ku dhalay ee ka haysato maysa haysanin marka aan sabarno sabaraa loo baahan yahay maanta wadan muslim haddaa inta imaatid noloshaadii mid lamida ama u dhowo kala xataa aa ka heshid ilaahayna ku mahad celisaa loo baahan yahay laakiin ingiriisaa ka imaaday ama yurubtas kalaa ka imaaday ama Canada iyo Mareykanaa ka imaaday exactly waxa ku haysta inta ku heli ma jirto simple life oo kii u dhigma ma helin kartaa nabad ma heli kartaa ilmaha waxbarasho muu heli kartaa caafimaad muu heli kartaa waxaan gabdhayna ka fikirnaa loo baahan yahay daaraha dhaadheero ka imaanay anaka iska meelaheena dadaa dhiste dadkaasna sharciye u wada samaysteen marka hooyo walba awlaadeeda ha fiiriso iyana fiirin dhalaalka iyo baabuurka yaraayay wadatay iyana fiirinin ha fiiriso mustaqbalka soo socdo oo ubadkeeda
marka ilmaha yaryar yihiinna waxayba ku fiican yihiin meel alle meeshaa geysatid way kula tegayaan waxba ma dareemayaan maxaa la dhahaa waxaa siisidna way ku cunayaan alxamdulilah ilaah mahad iska leh inkastay jiraan hooyooyin ilmo waaweyn dhaleen ayagoo waaweyn inta keeneen inta haddana maasha allah tabaaraka allah ama kenya gee ama soomaaliya gee haddana ula qabsadeen alxamdulilah marka hooyaday ku xiran tahay ubadkan ilaahay baariyaal allah nooga dhigo hooyooyin baariyiin oo sabrana allah naga dhigo laakiin intaa meesha imaatay meesha maxaa waa iiga joogo meesha maxaa waa boorka meesha maxaa waa tasxiiga meesha maxaa waa yacni inaa iska dhigtid kaanahu inaada weligaa arkinba meel oo boor iyo magaciisa ah soomaaliya ku dhalanay caagi biyaha mulmuliga biyaha maaragtay marada inta la iska xijiyo aa la cabi jiray inteena badan soo marka yaan iska dhigin waxaana weligood aana soo arkin noloshaas aa ka imaanay nolol khiyaaliha aad wax runa ma ahayn laakiin maanta africa imaatay ama kenya imaw ama qaahiro imaw ama soomaaliya tag really life aa heshay ilaah uga mahad celi alxamdulilah nolol aa khiyaali ahaynin oo mataqaanaa iyo munaafaqnimo ahayna haysatay jacaylka ilmaha loo muujinayo waa mid feego ahay laakiin markaad dhul muslim imaatid waxaa ogaanaya really jacaylka aa ilmahaaga u qabtid oo waalidnimo ayagan waxay ogaanayaan tan really ay kuu qabaan oo waalidnimo marka aan noqono waalidiin sabro ilmahooda si daacad ah u korsado mida labaad cunuga markaa wadan muslim geysid ha ula dhaqmin cadaawo camale cunugaaga jecel waalidnimo tus la sheekeyso la tasha asiga maanta cunugaaga 9 sano 10 sano jira I need you ku dhahoyo adaa kuu baahanahay inay caawisidaa rabaa inaa waxay la qabatidaa rabaa inaa ilmaha ula korsida hooy inaa wax baratidaa u baahana soo cunugaaga saaxiib ka dhigo saaxiibka koowaad adaa u noqon karo soo marka wax walba oo soo dhaco ama iskool ha ka dhacaan ama guri ha ka dhacaan ama guriga dhexdiisa ama banaanka meel walba ka dhacaan ku sheegaya marka hooyooyin dadaala aan noqon insha Allah taala ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaada allah nala koriyo mida kaleetoodu sheegaya waxay tahay hooyooyinka masar joogo oo ilmaha haysto oo iskoolaadka u dhigtaan special wax walba way qaaloobeen maanta iskoolaadkii way qaaloobeen maxaa la dhahaa maciishadii way qaalowday sidoo hore aad raqiisto waxaan jirto maaha kiradii way qaalowdeen noloshii oo dhan ay isbedeshay anag masar keliyana maaha caalamka oo dhan ay iska wada bedeshay marka waxaa loo baahan yahay sidii aad wadankan uga tegin beri ooda inta aad ku noolaaweyn aad uga cararin inaad wixii xal oo adigu aad suubisid iyo cunugaas wixii xal u ah macallimiintan tirada badan oo guriga la keenaa in la kala yareeyo cunuga inta important oo u baahan yahay caawinaad in laga caawiyo inta kaleetoodna in la iska daayo waxaa maqlaysaa howshan macalima haysataa shan macalin goorma horta waqti u haysaa cunugaas waxdii guriga ka tegay wuxuu ku imaaday galabtaas oo tacbaan ah cunto homework ka shaqey lahaa macalin markaa meesha u fareysis oo markuu macalinka baxana oo maxaa la dhahaa haddana aad homework samee aad tira 10 o'clock saakana aad 4 kaysa ama 5 muxuuba horta hurday soo cunuga maskaxdiisa ha ka shaqaysiiyo way jiraan ilmaha qaar daciif ah cunuga daciif ah macalimiin ku kab laakiin cunugii wax yani inta wax iskoolka kasoo barto wixiisa guriga kusii homework ku samaysan karo muraajaca kusii samaysan karo wax kusii akhri karo ha kusii akhriyo laakiin ilmaha yaa la bari macalimiin bes inay wax bari karaan iskoolka xiisad walba 1 saac ay leedahay ama 45 daqiiqo marka 45 daqiiqo iyo halkaas saac waxaa loo baahan yahay in maxaa la dhahaa cunugii maskax u yeesho laakiin haddii aa cunugii macalin keliya gelisay markuu iskoolka imaado hami masiina inuu wax barto marka macalimiintii asina isku dhibtoonayaan please hooyo walba fiidiyowga hala gaarsiiyo oo masar degan oo ilmo u dhigtaan ama caalam kale ha joogta xitaa macalimiinta tirada badan la iska daba wado ilmihiina maskaxda ilmahena waxay haystaa maskax fresh ama maskaxdooda ka faa'iideysano macalimiinta tirada badan ilmaha laga joojiyo luqadda oo cunuga u dhalan oo kale maxaa la dhahaa way anfacaysaa in la baro oo xooga la saaro laakiin waxyaabaha kaleetood cunuga inuu macalinka iskoolka u dhigayo oo intaasoo saacadood oo hor fadhiyo inuu kasoo faa'iideysto awroon aa u sheegtid aad tiraahid iskoolka markaad joogtid
dhegeyso xiisada uu macalinka ku siinayo because saacad wax yar maaha waqti badan waaye marka waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inaan aan ka faa'iideysan doono ilmaha maskaxdooda way yar tahay waa fresh wax walba way qabanaysaa marka hooyooyinka ka faa'iideystaan insha allah gabdhihii hore ugu talax tago macalimiinta tirada badan isbarana allah idin fududeeyo kuwa had soo socda laakiin ha isbarinina macalimiin tira badan hal macalin oo carabi hal macalin oo quraan hadaa u qabsatid oo cunugaaga aa wax baratid kadibna iskool aa geysatid iskoolka maxaa la dhahaa ku kalsoonaaw cunugaagana ku kalsoonaaw haddii aadan macalimiin dhaafaynin iskoolka iska dhaaf because iskoolka 1200 1300 1400 aa lagu dhiibooya soo marka hadaa macalimiin gelinaysid macalimiinta laga geli iska dhaaf waxba yoo iskoolka u aadin iskoolka muxuu kasoo faa'iidaa waa hada gooni ah oo waxna asxaabi weli meesha usii socda oo ujeediin jaama bilowda jaamka hadoo kasoo baxna haddana ujeediin dabaqyada dhaadheera u maleynayaa marka asxaabey soo dhawaada idin leeyahay hooyo walba oo jecelna inay wada muslim tagto ilaahay subxaanahu watacaala allaha u fududeeya ayaan leeyahay intayn hore usoo tagtana ilaahay subxaanahu watacaala meeshaa joognaba khayr iyo barwaaqo allaha naga siiyo laakiin awlaad ku dadaalno waxaan jecelnahay hooyo walba oo soomaaliyeed inay faraxsanaato aan is dhiirigelina insha allahu tacaala waxaa arkay hooyooyin ayagii ku nool qaahiro hooyo kaloo maskiinaa soo waceyso waxaa u baahnaa qaahiro soo dego ha isku imaa meesha dhib kaliya waaye adiguba haddaad ku nooshahay maxaa diiday hooyo kale inay inta imaato ku noolaato hooyada adigaa ma liidato waxaa adi samaysaan way samayn karaysaa marka gabdhaha reer qaahiran waxaan leeyahay qofka walaala oo u baahan oo ku jiro kusoo weydiisto inaada negative ka horgeynin oo tiri abaa ani waa ku noolahay waxaasaa ku arka oo runta qofka u sheegtid wixii nimcaha ku aragtid nimcada aa uga sheekaysid laakiin negative ha isku imaanin 10 sano aad joogtaa 5 sano joogtaa 7 sano 8 sano joogtaa ha isku imaanin meeshaana qofka u dhehaysaa qofku adigaa ma liito marka insha allahu tacaala is dhiirigelino hooyooyinka Kenya joogan ayagana khayr allaha siiyo meesha jadwalka waxa ka jiro oo runta idinkana gabdhaha u sheega lacagteeda qarashkeeda aad u badan yahay hooyadii awoodi karto ha imaato dhaha ku dhiirigeliya hooyadii aan imaadi karin wadanka ayada u fudud markaas qarashkeeda ka bixi karto inaa ku dhiirigelisiin laakiin maanta dadkeena ma wada awoodaan dadaa 3,000 2,000 2,500 awoodina ku jiraan marka ha u xumeynina wadamada kale insha allahu tacaala ilaahay khayra dhammaan allaha idin siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin qof walbana hadalkii wanaagsan qof walaalkiisa kula hadlana sataqow